السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركل إيو عشر ذي امتحاناها كل ساعتين channel كينا دويدر فورغ تريدين هدي الله إذنه ما أنتنا إن شاء الله تعالى وحن ديرد صار دونا أم اسكو تحلوشن دونا أم بأمبران دونا سيد الله حسابيو بيبكا سيدين وغينبا وين سوق هذا الناي وين سلف هانسنه وحا ويهي بيب maantana waxaynu baran doonaa sida loo xisaabiyo oo casharkeennii bibka haddii aad soo dhigateen haddii aydaan soo dhigana dib ugu laabtuu ku jira youtube-keena. waxaynu nidhi bib waa cabirka lagu xisaabiyo dhaqaaqa suuqa, waa waxaad ku garanayso suuqani imise bib buu hoos u dhaqaaqay ama imise bib ayuu kor u dhaqaaqay. marka insha allahu tacaala maantana waxaynu isla eegi doonaa haddii aan khasaaro amba haddii aan faa'iido inta bib ee aan faa'iiday lacag ahaan aniga imse ii tahay. tusaale ahaan haddaan 10 bib khasaaro amba 10 bib aan faa'iido imse ayay aniga ii tahay lacag ahaan. haddaan 10 bib loos gareeyo amba 10 bib aan faa'iido imse bib ayay ii tahay aniga lacag ahaan ayaynu isla eegi doonaa. bibkii wuxuu ahaa cabirka lagu xisaabiyo dhaqaaqa suuqa. tusaale aynu soo qaadano intan bib inaad faa'iiday suuqan aad kor u soo raacday ilaa halkaad la socotay waa 46 bib. 46 bib lacag ahaan imse ku noqonaysaa. calculator-ka caadiga aad ku xisaabsanaysaa oo hadba lot size-kaaga ayuunbaad ku dhufanaysaa intii bib ee aad faa'iiday oo waa wax iska easiya. laakiin insha allahu tacaala website inagoo isticmaalayna ayaynu bal eegi doonaa sidaas ka fudud inaynu ku xisaabino calculator-ka. haddii 50 bib aan faa'iiday ugu horeyn waxaad soo kici doontaa google chrome-kaaga amba any browser aad haysato waa isticmaali kartaa, laakiin kan ugu fiican wax walba laga helaa waa chrome-ka. google chrome-kaaga markaad soo kiciso halkaas ayaad ku baari doontaa bib calculate eegno kalinoo soo horbaxa kaa u sareeya ayaad mar walba qaadan doontaa ee bib value calculator fxtm global ay ku qoran tahay. website-ka ayaad isticmaali doontaa, click baad sii doontaa, ku dul dhufan doontaa. marka isagana aynu eegno siduu u shaqeynayo insha allah. bib amount halkaa u sareysa waxaa sidan ayuu kugu soo bixi doontaa markaad click siiso isla ahaantiisa sidan ayuu kugu soo bixi doonaa. intaad buuxinaysaana waa intan. halkaa waxaad gelinaysaa inta bib ee aad faa'iiday amba aad khasaartay. soo qaadna kii aan iminka eegayni muxuu ahaa 46 bib aynu nidhaahno. halkanna waxaad gelinaysaa already waxaad dooranaysaa lacagta aad trade-ka kaga jirtay, waayo lacaguhu way kala duwan yihiin. gool oo kale iminka lacagaha aad buu uga foolaati badan yihiin. marka waa inaad lacagta magaceedana doorataa si ay kugu fududaato inaad hesho bibka saxda ah. lacagtii aad trade-ku kaaga furnaa iyadana dooro. tusaale ahaan aanu nidhaahnaba wuxuu trade-ku iga furnaa aniga gbp aud ayaana 46. halkanna waxaad gelinaysaa trade size amba waxaad u taqaanaa lot size-kaaga aad gelinaysaa. aynu nidhaahno tusaale ahaan waxaan isticmaalayay lot size-ka ugu yar 0.01 aynu nidhaahno. halkanna waxaad gelinaysaa currency waa lacagta kuu deposit garaysan akoonka oo euro, usd iyo gbp weeye. usd baynu inagu badan ka deposit garaynaa oo dollar baynu isticmaalaa. currency waxa weeyaan lacagta marka aad broker-ka furanaysana aad kula baxdo withdrawga kugu soo dhacday dollarka, mt4-kaagana lacagta aad ku shubatay waa usd. marka waxaasoo dhan baa currency waxaa la idhahdaa lacagta adigu mt4-kaaga ku jirta ee aad lacagaha aad isticmaalayso lacagaas kugu sarifayso. halkaa usd baad dooranaysaa oo iminka kale tusaale ahaan haddii aad lacagtaadu usd marka aad broker-ka furanayso markaad usd doorato
haddii lacagtii u dambeysay aad isku bedelaysa ay noqoto tusaale ahaan GBP iyo card, GBP card haddaad isku bedesho lacagihii u dambeeyay isku bedeshaa, darowgaagu kaama noqonayo GBP iyo card dhimi doona, wuxuu kaa noqonayaa USD, waayo markaad brokerka furanaysay currency-ga aad dooratay ayaa ahaa USD. marka currency waa lacagtii markii brokerka lagu furayay aad dooratay ee ku ahayd lacagta aad isticmaalayso. waaya USD baan doortay, halkaa waxaan geliyay lacagtii aan ahayd aan trade garaynayay, halkaa waxaan geliyay bib amountkii, halkaa lot size-kii, halkaa lacagtiidii currency-ga ahayd lot size-kii ugu yaraa baan geliyay $46 baan idhi, 46 bib baan khasaaray, 46kaygii bib lacag ahaan intan bay ku noqotay, waa $3, waa waxaan $4 gaadhay, $3 iyo sanaati bay noqotay. way isbedeli kartaa haddii halkan lacagta ka bedesho, iyaduna way isbedeli doontaa. aynu nidhaahno imikoo kale euro GBP inu bedelno $5 bay noqotay, 46kii bib halkii imika 3 bay noqotay. aynu eegno euro USD, iyadana euro USD euro USD baynu eegno $4 iyo sanaati bay iyadna noqotay. marka lacag way isbedeli karaan, always adigu waa inaad halkan lacagta aad trade garaynaysa gelisaa, halkaa waa inaad gelisaa bibkaaga inta bib ee aad khasaartay amba aad faa'iiday si aad lacag ahaan u hesho. tusaale ahaan waxaad sii xisaabsan kartaa adigoo aan weli TB-ga iyo SL ka mid ahaan toona kugu dhicin, markaad trading view-gaaga joogto amba MT4-kaaga joogto. screen-kan haddaan inooga dhigo, markaad MT4-kaaga joogto waad sii garan kartaa take profit-kaagu intuu noqonayo, waayo maxaad samaynaysaa, aan soo cabirano iibkeenii, suuqan ayaad ka filaysay baanu nidhaahno tusaale ahaan buy, suuqan baad ka filaysay, halkaasaad doonaysa inaad ka gasho oo aad buy u xisaabiso, inta bib ee aad rabtay amba aad filaysay amba aad take profit-ka ka dhigatay ayaad marka hore soo xisaabsanaysaa. calaamadeenii bibta ku qabano, tusaale ahaan aynu nidhaahnaba ilaa halkaasan suuqan buy uga rabay oo aan buy uga gelayay, take profit-kayga halkaas uu yaalay, 25kaa bib ayaan ka rabay, 25kaa bib ayaan ka rabay suuqa oo trade-kayga halkaasaan ka qaadan lahaa. lacagtanna waxay ahayd euro card. maxaad samaynaysaa markaad xisaabsanayso, waxaad tegaysaa halkii 46 intii suuqa ka sugaysay maxay ahayd 25 bib, lacagtu maxay ahayd euro card bay lacagtu ahayd. lot size-ka isticmaalaysaad gelinaysaa, mar walba adigu lot size-ka isticmaalaysaad gelinaysaa, waxay ku noqonaysaa lot size-ka aynu nidhaahno 0.10 waxay ku noqonaysaa $19 iyo sanaati, ku dhawaad $20. marka always SL-kana haddii aan hal tusaale idinka siiyo, haddii lacagta aad buy-ga u analyze garaysay ay u dhici weydo si aad laba badanee sidaad u analyze garaysay oo ay kula soo laabato, halkeebaad adigu stop loss ka dhigatay, muhiimadu waa halkeebaad adigu stop loss ka dhigatay. waxaanu nidhaahnaba stop loss-ka waxaan ka dhigtay exactly halkii 25ka bib ee take profit-ku stop loss-kaan nidhaahnaba 20 bib baan ka dhigtay, oo waxaan idhi suuqu hadduu halkaa soo laabasho badan sameeyo oo halkaas soo gaadho, khasaare intaa ka badan akoonkaygu ma xamilayo ee iga jooji ayaan idhi. stop loss-ku waa mar walba badbaado weeyaan, akoonkaaga kuu badbaadinaya, qarxo ayuu ka badbaadinaya. 20kaa bib aynu nidhaahno waxaad khasaari lahayd 0.10 halkii 25ka bib aynu ka dhignaa 20 bib aynu ka dhigno, lacagtu waa isla lacagtii $14 baad khasaari lahayd iyo sanaati, $14 iyo sanaati baad khasaari lahayd. so waa horaan u sheegoon rari waan sii habeebnito, casharadaydu ma dhaadheeraanayaan waayo ma rabo in lagu caajiso. youtube-ka waad ka helaysaa casharo forex ah
laakiin midkiiba waxaa laga yaabaa inuu kuu socdo saacad ama saacad iyo badh. anu waxaan rabaa 20 mirir amba 25 mirir een casharka soo tabinayo inaan kasoo ka saaro muhiimadda ay qofka daawanaya uu casharkan u yeelan doono, oo aan ka dhigo waqtigii wax yaroo kooban oo la fahmi karo ujeedana laga qaadan karo. waayo haddaan casharka dheereeyo barhkiin waxaa laga yaabaa inaynu ku caajisno, barhkiin aynu fahmi weyno. laakiin 20 mirir amba 10 mirir aan haysto haddii aan kusoo koobo muhiimadda, cid walba waa sure inay faa'iido ka qaadan karayso. maanta halkaa waxaynu ku baranay casharkeenii ahaa sida bibka loo xisaabiyo. waxaan filayaa inaad ka dheregsantihiin. intaan hal mar soo dulmaro, bib waa cabirka lagu xisaabiyo dhaqaaqa suuqa. calaamadaada bibka soo qabso, halkaa kasoo bilow ilaa halkaa keen. inta bibi ay kuu noqotay bay calaamadani kuu sheegaysaa. inta bibi ay kuu noqotay waxaad la tagtaa inta bibi ay kuu noqotay 28 bilood ay kuu noqoto kab waxay kuu noqoto lacagtaa trade-ka kaga jirtay iyadna geli, lot size-kaaga geli, lacagta currency-ga kuwa waxay isku bedelaysa geli, jawaabtana halkaa ka sug. jawaabtana halkaasay kaaga soo baxaysaa, halkaa ka sug. riskigana waa sidaa iyo si leeg. inta bibi aad stop loss ka dhigatay soo qabso. inta bibi aad stop loss ka dhigatay markaad soo qabsato, bib calculate-kaagii la imo, lacagta magaceedii halkaa geli, halkaa inta bibi aad stop loss ka dhigatay geli. exactly halkaa waxaad ku arki doontaa lacagtii oo riyala, lacagtii aad khasaartay oo aan bib ahayn oo caadi lagugu soo sheegayo qoraal lagugu qoray oo qoraal ayaad insha Allah ku arki doontaa. waxaan filaya inaad ila fahanteen bib iyo sida loo xisaabiyo. waxaan filaya imika inaad garan kartaan inta bibi aad khasaari doonto lacag ahaan waxay ku tahay, haddii aad faa'iidana inta bibi aad faa'iiday lacag ahaan waxay ku tahay. maanta laga bilaabo intaa inaad garan doontaan maan filayaa. waxaan idiin rajeynayaa inaad faraxsan tihiin, nabad qabtaan, bashbash iyo nimco lagu jiro. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaan casharka xiga iskugu iman doono, asalaamu calaykum. imtixaanahan wuu soconayaa oo waa sidaan hore ka ballan qaaday ardayda Telegram-ka horaan usii afafdhigtay. waxaan idhi ma joojinayo imtixaanahan casharada walow hal arday waxa ka faa'iido. intaasaa aniga iyo khayr. walow hal arday waxa ka faa'iido waan wadayaa imtixaanahan ilaa intaan ka gaadhayo heer uu arday kastoo channel-kayga ku xidhma amba bilow ilaa dhammaa casharada soo daawadaa uu noqdo full trader kaligiis ku filan, isagoo gurigiisa joogana lacag ku filan sameeya, khasaarena iska ilaaliya. ilaa intaan heerkaa ka gaadhsiinaya casharada waan wadayaa. waqtina intay qaadan karto ma garanayo. anigu waan dadaalaya intii karaankayga. maalin kastoon fursad helana casharka ku xiga waan soo gelinayaa casharkaan marayo. waad mahadsantihiin.